inay yeeshaan maamul hoos ka soo bilowdo ayagu ay yaqaanaan qofay u dacwadaan inay helaan laakiin wiil aysan aqoonin oo madaxweynaha saaxiib la ah wiil aysan aqoonin oo ra-iisul wasaaraha saaxiib la ah wiil aysan aqoonin oo Fahad Yaasin saaxiib la ah yiriisow oo ilmihiisa ingiriiska ay joogaan oo af Soomaaliya aysan ku hadlayninba Soomaaliya ha noolaato meesha ay ka leeyihiin af ingiriis ay ku hadlayaan ninka ilmihiisii ay ingiriiska joogaan nin ilmo Muqdisho jooga ma uu naxayo waxaa la rabaa runta in la isku sheego kur waayeel waa wada indho waxaa loo baahan yahay haruubka habaraawo ha la buuxiyo cidna gaf kuma aha Muqdisho ha loo roonaado waa habuurka habaraawo ha la buuxiyo Muqdisho ha loo roonaado waaye ee maaha in Muqdisho qaraxa loogu roonaado dhaqaalaha laga qaato gabdhaha laga kufsado hoteelada lagu baashaalo cidii la rabo loo magacaabo ayda ay shirkad noqoto inta kale la kala yeesho waa cadaalad xumo waxba kuma dawoobaan waxaan leeyahay qofka ugu horeeya salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جبال نور إيه ورد آد مدينة وحمد مليا أنا كندا كتمت كندا تورنتان كإمت وحان صوب حي أربعة هبينكي وحان حالي كهودي أو أهيد هبين أي سوق ليس جمعة أنه لا خميس magaalada Geneva Switzerland aad Canada iyo Geneva aad u kala fogtahay dhowr iyo 10 saacan soo socday aad marka waxay ila tahay Madiina qoor weyn qof la yaqaan Muqdisho laga yaqaan taariikh leh aabahe taariikh laha ayaa tahay garan kara maanta waxa jira dadkii kugu nooc ah badankood qaar aan wax maartay dhintay iyo qaar hadii Ilaahay ku ruuy aan diyaarsanayn maxaad kula talin lahayd dadka aad garanaysid iyo Muqdisho nolosheedaba maadaama aad tahay مثل la fiirin karo oo garanaya dal ilmo maartay madax ilmo dawladnimada yaqaana runta iyo beenta kale yaqaana dhasarcaadka iyo haysiinta kale yaqaana laba ka dhaho hawshan meesha ka jirta ma sha Allah afkaaga caanid ku qabay aada u mahadsan tahay marka anigoo Madiina ah waxaan rabaa inaan gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed horta nabad iyo wadajir iyo walaaltinimo wax ka fiican ma jiraan walaadna wax lagu keenayo ma jiraan aan qasaare ahayn waxaan rabaa inaan gaarsiiyo tolkayga hiraab gaar ahaan inaan gaarsiiyo Mudullood inaan haleelnay oo aan cagta saarnay wadadii toosneed inaan midaysannahay inaan haddii aad ku rooyahay waafaqnay tawfiiqdii Ilaahay na faray waxa aan ku midownana ma ahan dad kale fitnadiis ma ahan dad kale walaalo islaam ah inaan fidnayno waxaan ku midownay xaqayna inaan helno waxaan ku midownay ubadkayna aayahooda dambe inaan u sii gogol xaarno waxaan ku midownay Soomaaliya wanaag iyo hore u kaac inay gaarto waxaan ku midownay inaan meel kasta aan gogol nabadeed intaasaan ku midownay intaasaan ku tala jirnaa intaasaan u imid intaasaan safar dheer u soo galay walaalahayga Switzerland degan qeyr Allah siiye ogashaan ay ma aragtay diyaariyeen ay noo wada dhigeen inaan qayb libaax ka qaato inaan tuso shucuurtayda xeerka ay marsiisan tahay iyo taageerada aan u haayo siday u wada dhan yihiin aad Madiina maadaama aad qof taariikh badan Soomaaliya ka haya aad tahay Muqdishona ka warqaba maanta maadaama la qaatay system federal ah oo qolo walba iyo magaalo kasta ay matalad yeelatay magaalada Muqdisho maxaa ku jaban inay matalad yeelato dawladda Soomaaliya ay deganaato marka ugu horeysa walaalkay Jamaalow horta federaalka iyadoo laga fiirsanin oo aan loo bislaanin ayaa hore laga qaatay ujeedooyin badan ka dambeeyay oo ay ugu weyneed Soomaaliya inay burburto ay kala gogo'do waana tan maanta la taagan yahay annagu waxaan nahay dad qabiilo u kala baxsan oo qabiil kastaba uu degaan leeyahay Ilaahay dajiyo lagu tilmaamo haddana kala guursada wada dhaqma isa soo dhaweeya ee markaasi Soomaalinimada iyo Islaamnimada dhowra hadda federaalki hadii la qaatay waxaan leenahay marba haday naqataninba deegaankayna leenahay qof aan ka baryayno malaha qof aan weydiisanayno arju u qorayno ogolaada aan leenahayna malaha talada anaga leh gurigayni waaye qof noogu soo magalayso
qof nagu maamulayso ama nagu xukumayso aan yeelaynana ma jirto meel kastaba sidii maamul iyo nidaam looga sameeyey ayaan aniguna xaq u leenahay intaanna ishaan ka fiirinaynay waxaan intaan ku soo gaarnay bal suga bal sabra bal ha degdegina markaa aragnay waxgaradba inuu jirin xishmo iyo istixgelinba inay jirin waxaa maanta la soo baxnay wixii awoodayna ah inaan annaguna degaankayna wareegsanno ka talinno xuquuqdaynana soo dhacsanno waxaana uga digaynaa qof kasta ee na hor istaaga waxaan uga digaynaa kuma roona ee ka joog aad iyo aad ayaa maaragtay u mahadsan tahay Madiino Goorweyne oo ah qof oo ka mid ah aabaheed madaxdii ugu horreeyay dowladda Soomaaliyeed qaar ayaa caaw waxay ka canaaqsan yihiin waxa aan ka hadlayno oo aniga maaragtay saan u qurxoonay waxay leeyihiin foolxumo alla iga ilaaliyey fadhuxumo anaa iska ilaaliyey marka foolxumo aniga shuqulna kuma leeyahay qolaa meesha waxay ugu soo qoraysaa foolxumo marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Madiina أنا ما سنتي سوق بجبي سيقف كوجو حاجة أو سوق جمال فالحمة إيو أفلقات إيو وحا صوتا كرادية بدكان قعنت وحبكو هيرن أدياد وحا عروضا بدك قول درهد ما انت أكتالو أفلقات يا عاي هدي لإي صدر أما أديك لغو صدر وحان أقال inaan guul gaarnay oo